السلام عليكم داودة كسر ومقال كان يرن ويل كان يقصى مري بسدان وآد أقيل ليسا مركا أو أركي أي سوقاتي بروس أما الدبي وحانا أو إسكود ياسي أو بدباديو بسدان إلى أو دربي قد نعيد كبربريي إنه بصدق هو ugu wanaagsan oo ugu tarbiyada fiican xayawaanada waxay qoodata guriyaha oo daris ay la tahay dadka bisadu waxay weheshataa dadka bilaadanka iyo guryahooda lidaalika ay sabanaanayn inaad dhibtid ama dhibaato u geysatid bisadaha waa xayawaanada u sharciyeeyay sharcigeenu in la tarbiyeeyo nabigeena kaleey salaatu wasalaam asagoo rabbi xaqiis nooga keenay ayuu wuxuu noo sharciyeeyo noo sheegay in la xanaaneeyo la ixtiraamo la qiimeeyo oo la qoodiyo bisadaha wuxuu kaloo noo sheegay inay muhiim yihiin bisaduhu rasuulka ilaahay wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam haweeney inay naarta u gashay bisad sababteed yaa subxaanallah haweeney iyo qof bilaaadana ayaa naarta galay sababna waxa uu ahaa bisad oo siday samaysay waxay samaysay way xirtay mana qoodino wax ma siin xarigana kama furinsa ayadu soo qaraabato gaajay ku dishay way lidaalika ay naar gashay haweeneydii faa'iidooyinka ay bisaduhu leeyihiin waxa kamid ah guriga ay bisadu ku nooshahay ama dariska la tahay wuu ka cararayaa bahalka loo yaqaan jiirka ama dooliga marka waa xayawaan faa'iido leh hadibin ilaa uu darbiga dhinacyada ka burburiyay ugu dambeyn waa uu badbaadiyay meeshan waxaan ka qaadanaynaa xayawaanka xataa inuu u baahan yahay caawimaad sida uu bini aadamku u baahan yahay in la caawiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin